بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك، عيد العافية، كل عام وأنتم بخير. dhammaan golayaasha qaranka, madaxa dhaqameedka, culimada diinka, xisbiyada qaranka, dhammaan bulshada reer Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshooyinka islaamka ee dunida, waxaan munaasabada ciid al-adha leeyahay ciid mubaarak, ciid al-caafiya, kullu caamin wa antum bikhair. waxaan ilaahay inooga rajaynayaa inuu ciidan ciideeda inagu gaarsiiyo caafimaad, cibaado, bashbash iyo barwaaqo. aamiin aamiin aamiin. hamadiyaas ciidda kadib waxaan bulshada reer Soomaaliland ku bogaadinayaa dadaalka muddada dheer ay soo wadeen iyaga oo shacbi iyo dowlad ahaanba iskaashanaya. dadaalka waa ka maanta ku soo gaadhnay halka qarankeenu uu taagan yahay, waxaana xaqiiq ah wax kasta oo aan soo qaabsanay waxaa lafdhabar u ahaa nabadgelyada aynu ku naaloonayno, taasoo ku timid tabantaabadii laba gacmood tamar ku yeeshaane iskaashiga shacbiga iyo dowladda. wax kastoo aynu soo qabsanay waxaa ka baaxad weyn howlaha qaran ahaan inoo yaalla, taasoo aynu kaga miro dhalin karno inaynu dadaalkaasi wadno si aynu u gaadhno higsigeenna iyo halka aynu qaran ahaan u soconno oo ay ugu muhiimsan tahay in qarankeenu helo aqoonsi buuxa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay beesha caalamka iyo gaar ahaanba wadamada jaarka ah ay kala shaqayso nabadgelyada iyo deganaanshaha gobolka. kullu caamin wa antum bikhair.